soo dhawaaw ugu dambe ku faraxsanahay inaad imaataan maantana xafiiskayga shaqada aan kugu soo dhaweeyo culayska ku saaran ii sheeg walaalkay soo dhawaaw ugu dambeyntii kusoo dhawaaw Jomo Kenyatta Airport kanada laqo inta yara ka soo dhacay waxaa jiray traffic jam baa jiray aka qabto marsiima weynaysid soo dhawaaw siduu ahaa safarkaaga masha Allah kartida waa la igu dhalay midab hadda adigu amaanaysid ma soo dhawaaw walaashay walaalkay masha Allah xafiiska wuu diyaarsan yahay maxamed kaas ku fadhiiso soo fadhiiso okay walaalkay markaan ku fadhiisanaya ma yahan barkan masarka saar isku fiiran masoo kan abaa shaqadaada tahay aan martibaan ku ahay maanta هاي ولكن وندوها ما شاء الله لكن كنت حفيزكو اسك ديارسين هاي سفر طويل وديارسي لكن ولكن waxaan dareemayaa ganacsiga inuu hoos u dhac ku imaaday qaybta Nairobi waalidiintana intay dareemeen ayay soo direen adiga ayaa meesha joogay ganacsiga inaan ku aamin maxay tahay dhibaatada ku haysata ee aad ganacsiga hoos ugu sii ridaysaa horta baasoo wandowha Nairobi runtii imaashahayna kada soo igu ahaa oo Usmaan waxayna baayaa intay maanto ku faraxsanahay inaad imaataan maantana xafiiskayga shaqada aan kugu soo dhaweeyo xisaabaan isku dhufanayaa ganacsiga maalmaha waa qof isdibaataan maahan oo walaasha badan iska jira xagga dowladda adigana maalmaha ila joogtid waa rajeynaya inaad ila dhaqanto shaqada wax badanna waad arki doontaa hawsha u wadno xafiiskan kaliya maahan saddex qolo xafiis aa jirta oo isla magaalada ku yaalan kan waa midka aniga ka taliyo sababtaan u imiday baa waxay tahay inaan wax kula qabto laakiin walaal
nin firfircoon oo ganacsiga u firfircoon oo waxqabadkiisu heer sare yahay baa dhahay maxay tahay culeyskan ku saaran iyo hoos u dhacan iyo dib u dhacan aad ganacsiga ku keenaysaa maxaa yeelay familiga adiga ku tashanayeen ganacsigan qaybta ugu muhiimsan ayaad halkan ka haysaa waxaana la rabay inaad kor u soo qaado waqtiga culays baan ka dareemayaa maalmahan xataa maadan ii imanin ilaa aan ku soo wacnay ima soo wacaysid maxaa qaldan baa leeyahay bal ii sheeg walaashaa baan ahay waxba hayga qarsanin wixii kaa qaldan culayska ku saaran ii sheeg walaalkey abaayo waa weynaaday wax badanna waa iska bedeleen waxaan jeclaystay inaan noqonay mustaqbal leh guursado waxaa iskaga bedelay ayaa ah midaas abaayo waaw walaalkay maasha allah war farxad leh ayaad ii sheegtay waxaana wax laga murugoodo loo is istaaga ma aha maxaa yeelay qof walba wadadan wuu soo maray waan ku faraxsanahay waan ku hambalyeeyaa laakiin aad ma sidii maayo maayo maxaa dhacay walaal nin kale ayaa jeceshahay maxaa kugu dhacay walaal adigoo isteelkan iyo quruxdan leh miya naagi intii ku diida nin kala raacaysaa maanta waxay jaraysa malahan wax kasta waan ku bixiyey farxaddeeda wax kasta waan ku bixiyey hataa darteeda guriga oo dhisan waa magaceeda ku qoray inay iyada nolosheeda qayb ka noqoto awgeeda laakiin waxaan arkayaa lacagta inaysan waxba ahayn oo bini aadam ku baahan yahin farxad jacayl qof daacad u ah maxaa dhacay walaal adi markii hore lacag miyaad kusoo xerogelinaysay qofka maada jeclaan dhibaatadii haysato ayaa ah midaas oo ganacsigayga dhawaanahan dambe hoos ugu dhacaya waa iga fikirsiisay dhib ma walaal qofka ay jeceshahayna waa aniga saaxiibkayga waxaan bal kusoo wada kornay adiga saaxiibkaaga miyaa gabadha adiga jeceshahay isaguna kaa qaaday laakiin aniga isma lahayn walaalka ayay gabadha diidaysaa xataa hadduu faqiir yahay sababtay tahay ilaahay baa ku dhammaystiray quruxdaada iyo waxwalba haddana saasay tahay gabdhaha markii la shukaansanayo lacag un laguma soo xerogeliyo ee waa inaad deganaan muujisaa sidoo kalena waa inaad ogaataa qofkaad jeclaanaysid heerka uu taagan yahay laguma degdego qof walo aada garanaynin xiriir lama sameeyo yani waxaan ku dhihi lahaa walaal haddiiba ay gabadho saas kuu gashay faraha ka qaadan gabadhaha ka badan ka qurqurux badanna way joogaan isku daya waan isma dadaaliyey gabar kale gabdho kale waa raadiyey laakiin qalbiga wuxuu leeyahay midaada oo midan ha ka dheeraanin hadday ku qalbijiso waxbaa u arkin hadday kaa tagto waxbaa u arkin niyad jabin adiga gabadhaada qofta mustaqbalka loogu talagalo waa kan camal lii leeyahay mudaa anigana inta karaankeyga oo isku daynaya si loo siiyo shalay darteeda korkeyga gubanay walaal hays dhibin aniga kood muddo walaasha ah wax walbana anaa kaa caawinaya xataa gabadha anaa kuusoo xareynaya waxaas wax weyn maaha teeda labaadna nin rag buu ilaahay kaa dhigay inaad cabsatana looma baahna jacayl dartiisa karti muuji shaqadadana sii wado gabdhaha iyagoo ku daba yaacaya ayaad arkaysaa sidoo kalena gabdhaha mar walba waxay jecel yihiin looma sameeyo si aad u hesho waa inaad is adkaysaa si ay iyagu kuu jeclaadaan marka walaal aan fadhiisano ganacsigeena aan ka wada hadalno hawlaheena kale midda nololeed hadhow markaan gurigeena tagno ayaan ka wada hadlaynaa soo fadhiiso dhan waaraboodaa ganacsigeenu wuxuu sameeyey hoos u dhac yar laakiin sida ay tahay weli heshiisyada aan la galnay shakooyinka wadamada kale waa uu taagan yahay way ogolaadeen in nala shaqeeya
كمبانيga guryaha dhista isagana shaqadiisu way taagan tahay marka maxaa qaldan waxay iga codsadeen ka hor inaanan intaanan yani hawshan aysan soo galin ka hor inaan lacag u hormariyo halka wadamada qaar ay sameeyaan marka hore in ay ku maalgeliyaan ka bacda lacagta ay adiga gaar ugu gudto hadda Turkiga oo kale waxay ku leeyihiin markaan dhisno wadanka ama yani maalgelin ku galin oo sameeyno company-ga wixii ka soo baxo ayaan leenahay faa'iido kala goosanayna laakiin kuwani horumaris ayay ka rabaan ka hortaan hawshaadan kale sida ogeeda wax ka dhayaan galiyay China ayuu washaqaynta way socotaa dadka wala dib ma laha waxaan ana ka xalin doona laakiin company-ga waxa loo baahan yahay inaad taxadirkaaga muujiso maxaa yeelay adiga laga rabaa inaad deposit ay ku siiyaan haddii aysan ku siinaynin waa inaad qandaraas la saxiixataa warqadahooda oo saxana iyaga original haddayna ku siinin ha ku degdegin saasaan rajaynaya inaan sameeyo abaayo dadaalkeena waxaan xoojinaynaa maadaama hadda adiga maanta garabkayga noqonaysaa wax walba waxay noqonayaan sida loo baxnaa wada shirkeena laba geesoodka halkaas ku egyahay sharaf ay tahay maanta inaan xafiiskii qaaskan ganacsigan wax badan aan kaa tusiyo arrintan nolosheeda ana ma rabo inay cidda gaarto dhib malabo walaalka ma warhayo hooyayka ma warhayo aabana sidoo kale waxaa rabaa inay qaasiya noqoto maasha Allah nahay haddaban ani wixii sheeganayaad u sheeganaysaa wallahi waxaan dhan ana ka xalin gabadha walaalkay sidan u gashay inaan arko lagu qasbay way aad soo